continuing with the new Somali president. waxaan ula jeedaa ninkan xilka loo magacaabay bishii Febraayo ee la soo dhaafay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu u magacaabay maamulihii hore ee shirkad shidaal oo Ingiriis laga leeyahay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. This guy that was just put in February. The new president of Somalia has appointed the director of a British oil firm as the new prime minister of Somalia. waa wax lala yaabo sida arrintaasi u dhacayso musuqmaasuqa noocan ah oo aan arkayno waa mid la filayay. Funny how that happens. This kind of corruption that we're seeing is to be expected, though. qaabkan lagu kontaroolayo oo lagu maamulayo qaran dhan oo dhisan waxay caddayn u tahay in ciidamadu ay xitaa ka awood badan yihiin dawlado caalami ah kuwaas oo maamulaya qurumo dunida oo idil ah. waxaana shirkadda boqortooyada Holland ee Shell ay si cad ula shaqaynaysaa shirkadda boqortooyada Qatar waxaana ay qaateen khayraadkii shidaalka ee waddanka Soomaaliya iyagoo meesha dhiganaya siyaasiyiin ay siday doonaan u maamulayaan. This kind of control over entire nations is evidence that forces even more powerful than national governments is in charge of nations on a global scale. And Royal Dutch Shell is clearly working in collaboration with the royal family of Qatar. They have taken over the oil resources of Somalia by installing these political puppets. waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado in shirkadda Rothschild ay maamusho shirkadda shidaalka ee Holland ee Shell. taasina ma ahan qayb ka mid ah aragtiyadooda guracan ee waxaad ka eegi kartaan website-ka rasmiga ah ee shirkadda Shell. ka dooro meesha ay ku qoran tahay About Us waxaadna halkaa ku arki doontaa sida ay uga hadlayaan qaabkii qoyska Rothschild ay si weyn u maalgashadeen shirkaddani sanadihii 1880-aadkii iyo sidii Rothschild ay kaalin weyn uga ciyaareen sanadihii la soo dhaafay iyo qaabkii ay u horumariyeen shirkaddani caalamiga ah. It's important to know the Rothschilds control Royal Dutch Shell, and that's not some conspiracy theory. You can go to Shell's own website, official website, go to the About Us page, and you'll see how they talk about how the Rothschild family invested heavily in the 1880s and how the Rothschilds have played a major role over the years in the development of this multinational corporation. waana inaad ogaataa in dadka maamula shirkadahaasi caalamiga ah aysan jirin dalal gaar ah oo ay daacad u yihiin ma ahan wadaniyiin. daacadnimadooda ugu horreyn waa naftooda ee ma ahan dawladaha ay ka tirsan yihiin. waana middaas sababta aadan ugu kalsoonaan karin dadkaasi. waa middaas sababta ay u yihiin kuwa door muhiim ah ku leh mashruucan ka socda dhammaan waddamada kala duwan hadday ahaan lahayd Qatar, Turkiga, Ingiriiska iyo Maraykanka. And understand, the people who control multinational corporations, they're not loyal to any particular nation. They're not nationalists, they're globalists. Their loyalties are first and foremost to themselves, not to the nations in which they reside. That's why you can't trust these people. That's why there are key players in this scheme that are from all kinds of different countries. We can go from Qatar to Turkey to Britain to the United States. qorshahani ma siinayo oo keliya hodantinimo aad u ballaaran dadka maalgashiga samaynaya iyo kuwa ku lugta leh, laakiin waxa uu sidoo kale uu dawladda Maraykanka siinayaa jaanis ay ku maamusho Soomaaliya, taas oo noo saamaxaysa inaan ballaarino howlgalladeenna xagga dhulka ah xitaa in ka sii dheer annagoo u gudbayna dalalka Yemen iyo Iiraan. waxaas oo dhan waxay salka ku hayaan shidaal. And this scheme provides not only vast amounts of riches, right, to the people investing, the people involved, but it also provides the United States with control over Somalia. It gives us a staging ground to expand operations even further against nations like Yemen and Iran. And it all goes back to oil. u fiirso hadda askarigii Maraykanka ahaa ee dhowaan lagu dilay Soomaaliya annagoo ku guda jirnay dhammaan caddaymahaasi waxay tilmaamaysaa in nidaamka cusub ee caalamiga ah uu u shaqaynayo sidii gacanta loogu dhigi lahaa shidaal fara badan oo dalkaasi leeyahay. Think of it, that this U.S. soldier that was just killed, in the midst of all this evidence that the New World Order is working to take control of more oil resources in this region,
maxay tahay sababta dawladda Maraykanka iyo sirdoonka CIA-da iyo militarigooda ugu dirayaan inay la soo dagaalamaan xarakada Al-Shabaab? Waxay ku saabsan tahay shidaal. Why is it that the U.S. government is sending the CIA and the military in to fight some ragtag group of terrorists like Al-Shabaab? It goes back to the oil. Aan idiin akhriyo daraasad culus oo ay soo bandhigtay dawladda Kenya xilli aan fogeyn. waxaadna ogtihiin in Kenya ay dhinaca koonfureed xuduudka la leeyihiin Soomaaliya, waxaana daraasadani ay leedahay sida tan: khatarta weerarada Al-Shabaab iyo Al-Qaacida ay ku hayaan kaabayaasha muhiimka ah ee tubooyinka saliidda qaada ee waddanka Kenya waxay dhalisay dareen ah arrinta istiraatiijiga ah ee ammaanka waaxda tamarta, waxaana ay muujinaysaa dabacsanaanta ka imaan karta qaybtaasi. ilaalinta kaabayaasha muhiimka ah waa inay noqotaa qayb muhiim ah oo ka tirsan ammaanka qaranka. ujeeddada kooxaha argagixisada ah ma ahan oo keliya inay ridaan dawladda dhexe iyo inay helaan xuquuqdooda madaniga ah, taas oo ay ku waayeen qowmiyad ahaan ama koox diimeed ahaan, laakiin waa sidii ay ku aas-aasi lahaayeen gacantana ugu sii hayn lahaayeen khayraadka. Let me read to you from a major study that was presented to the government of Kenya not long ago, and you may know Kenya is that southern neighbor. They border Somalia to the south. And this study that was given to the Kenyan government says this, quote, "The threat of Al-Shabaab and Al-Qaeda terrorist attacks on the critical infrastructure oil pipelines in Kenya has brought to the attention the strategic issue of the energy sector security, highlighting the potential vulnerabilities of this sector. Critical infrastructure protection should be a key component of the national security. The objective of terrorist and extremist groups is no longer to overthrow central government and gain civil rights which were denied to their social, ethnic, or religious group, but to establish and retain control over resources." sidaa darteed waan ka xumahay inaan idhaahdo, balse askarigaasi Maraykanka ah ee dhowaan lagu dilay Soomaaliya looma dilin isagoo u dagaalamaya inuu dadka Maraykanka ah ammaankooda sugo, taas oo ah sida ay sheegteen laanta militariga Maraykanka uga mas'uulka ah howlgallada ciidan ee 53 dal oo Afrikaan ah oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano AFRICOM. So I hate to have to say it, but that U.S. soldier who just died, he did not get killed fighting to make Americans safe, which was the claim of AFRICOM. askarigaasi waxa uu naftiisa ku bixiyey sababtoo ah CIA-da ayaa u baahatay in ciidamada Maraykanka ah inay dagaalkaasi galaan oo ay gacanta mariyaan xarakada Al-Shabaab, kuwaas oo halis ku ah dakhliga ka soo gala shidaalka. That soldier gave his life because the CIA needed the U.S. military troops to go in and wipe out Al-Shabaab extremists who pose a threat to the oil revenues. askarigaasi dhiiggiisa waxa uu ku bixiyey shidaal dartiis, waana xaqiiqda jirta, waxaas oo dhanna waa saliiddaas Soomaaliya ku jirta darteed. That soldier's blood was payment for oil. That's the truth. It's all about oil. baaritaankani waxaa sameeyey wariyaha Maraykanka ah ee baaritaanada ku xeel dheer Jack Morphonius, waxaana uu ku soo bandhigay bartiisa YouTube-ka ee The End Times News Report oo qofkii doona uu ka daalacan karo.